iyo asbaabtii keentay inaan idin wacnay inaan meeshaan imaadaba aan isku imaado dhammaanteed inaan si kooban aan kuu sheego. waa ogtii taariikhdii Mustafaada ka hadlay wadadii dheereed ee waayahan kaboodii doorashada ay soo mariyeen. dowladnimo sideedaba sharci waaye, qaanuun waaye, min ra'yigiis maaha, ra'yigeed ma aha, waa wax qaanuun lagu heshiiyo oo dadku isla ogolaado oo meel yaala ama dastuur ha ahaado ama sharci kale ha ahaado. marka intaas waxaa loo dhigtay waxay tahay inay fuliso qawaanintaas loo dhiibay, inay dhaqan geliso ay dadka ku xukunto oo dalka ay ku xukunto. annaga duruufo gaar aha dalkeenu marka uu hadda ku sugan yahay yaabaa meelo badan iyo mashaakil. qawaaniintana waxaa loo dejiyay inay mashaakilaad xaliso, mushkilo aan weli dhicin oo imaan doonto loo dejiyay inay xaliso. haddii marka qawaaninteeni duruufaha hadda jira awgood dastuurkeeni iyo qawaaninteena qaarkood aanay caddaynaynin ama xalinaynin mushkiladaha qaarkood, wixii qaanuunka laga waayo ila waa adiga ra'yigeyga iyo adiga ra'yigaaga unbay tegay. markaasi ra'yi naga wada dhexeeyo meel noo yaalla ma jiro. marka waa in laga tashadaa wixii qodobkaas dastuurka oo numbarkiisu kaas yahay facradaas oo ABC aqoriya la yidhaahdo aada loogama doodi karo. wixii qaanuunku tilmaamay oo sharci nambarkiisa intaas waqtigaas soo baxay ayaa tilmaamaya la leeyahayna ayadana aada loogama doodi karo. wixii ka soo haro waxa waaye wixii looga tashado oo laysla ogolaado bisaa ka dhaqangeli karo. qawaaniintuna sideedaba waa wax laysla ogolaado lafteeda ee qof iskama keensan iskamana yeersan. annaga duruufihii gaarkaa dalkan ku sugnaay mar walba dastuurkoo qabyo ah, qawaaniinta qaarkood oo naga maqan, dhaqanka dowladnimada qaarkiisoo naga dhiman, mar walba dhaqan oo doorashooyin oo laakiin raalli la isaga yahay oo aan colaad dhalinin oon dagaal dhalin oo dadka iyo dalku aanay kusii kala qaybsaman ayaan kusoo dhaqmi jirnay. xoog ma ahayn, caqli ma ahayn, dabaalnimo ma ahayn, waxay ahayday wixii mar walba dadka inta lasoo dhex dhigo lagu heshiiyo lagu sidaasaad galay soo shaqeeyey. nasiib darro maanta marka tiyo ka mushkiladda meesha taagan waxay tahay 2 sano lasoo dhaafay dowladdu waa ku darsanaynaa, waqtiyaa zaa'idaa la qaadanaa, waxaan loo diyaarsanayn oo la keeno, sharciyaal qaarkood oo dastuurka aan waafaqsanayn oo la keeno. intaas dagaal maaha lagu soo jira. waqtiga markuu dhammaaday doorasho dalkan ha ka dhacdo iyo ma ka dhacayso iyo doodeeda waa soo dheere, extensionkii iyo lagu daray iyo wixii waa laga yimi. nasiib darro dowladdu iyo hoggaanka weliba ugu sarreeya dalka ee madaxweynaha dalkan madaxweyne uu leeyahay, madaxweynaha loo doortay, dadku mas-uuliyadda asay saarteen. waxa ka soo haro prime minister loo xukuumad loo maxle asigii kasii farcameen moogiin dadku waxa ay doorteen oo wakiiladii dadka loo doortay madaxweyne u ahay. nasiib darro madaxweynihii dalkeenna walaalkeen oo annaga weligeen aan ku celceli jirnay muddada la doortay madaxweynaha su-aal kama taagna, qof ku haysatan xukunkiisa male, laakiin qawaaniinta iyo nidaamka hala dhowro. doorashadii dalka doorashaha ka dhacday waqtiga hadduu dhammaado iyo ka dhici maysadii wixii ugu dambeeyey waxay ahayd prime ministerka in lagula diriro lagu soo bixiyey. annaga horaana loola diriray wax kasta oo duruufo ah oo dagaal keeni karay oo dhaqan ahna lagu sameeyey si ay u dagaalamo yiraahdo qaraabada magaaladan degan waa taas la rida moogiin la yiraaho. annagana waa ka adkaysanay, waa ka dul qaadanay, waa joognay, mana aanan cararin, mana dagaalanay, codkeennana ma gaabinin oo ma aamusino. shib maanaan dhihin. taas marka in extensionku imaan waayo waa la isugu tegay, waa la keenay in maxaan ku rahaa doorashadii daliil waxa u ah marka horumar badan oo weyn oo siyaasadeed hoggaankii madaxweynihii la doortay dalka inaan u keenin. meeshii sharcan ka nimiday oon 2016 aan ka ballannay 4.5 loo soo noqon maayo. doorasho qof iyo cod dalka ka dhacay, xisbiyaa ka dhaqan galaa. 2016 laga ballamay, warqadaa laga qoray, heshiis dowladaha laga galay dadkii mas-uuliyiinta markaa waa ka furso weyna meeshaan ku noqonnay, waa aqbalnay. doorasho sideedaba waxaan rabaa walaalahay gabdhaheen inaad fahamtiin yaa loo qabanaa doorasho sideedaba. dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu
waa laba lakab oo dowladnimada ah. dowladda dhexdeedana doorasho looma qabto. waxa doorasho loo qabto waa shacabka iyo dadkan meesha fadhiya dadka la midka ah. duruufo keenay marka inay dowladdii iyo dowlad goboleedkii doorashada inay ka heshiiyaan. annagoo joogno yaa laga heshiiyey, qayb kamaana ahayn. Dhuusamareeb 1 2 3 xamar tii u dambeeyay bishii Sebtembar dhammaan waa taageernay. mid walbo la gaaro ma socota hooyo iyo horaha loo socdo, ma intaana garateen iyo horaha loo socdo. hadda marka waxay taagan tahay in la yiraahdo wiilasheena askarta ciidanka ayaa qaadi noo ah, arbitra afrimbiga yeerinaya asaga goobta suuqan keen ma ciyaarina. warkan wiilkaaga waaye, warkan ana aqaan sarkaalkii shalay waaye, kan waa ha sheegin. taasi marka dhibaatay dhalaysaaye madaxweynaha asna xukun u dhali mayso, dalkana dowladnimo iyo deganaansho u dhali mayso. annaga marka waa cabsanay, waayeel maalintii oo cabsada hal yiraahdo carruurtuna habeenkii waa isu cabsanay inaan marka intaan isu nimaado annaga aan u yeerano, annagana intaan isu nimaado aan tashano. haddii dhexdeena mugdi ku jiro ma jiro, waa dhammaatay. shalay shaqaynaa shalay maxay saanu ahayd, maxay u cad isuma haysano, waana kasoo hadalnay, waa kasoo ballanay. berriyaan rabnaa inay qurxoonaato oo berri qurxoon ay noqoto. marka annaga isu nimaday waa tashanay, waxaan dhahnay waxaani waa culus yihiin, waana weyntahay qadiyaddan, annaga kaliya kuma filin. maalintii afaraadaan meeshaan fadhinaa, dadka magaaladan jooga qaybihiisa kala duwan oo dhan waa inta badan waa soo aragnay. maanta culimadii ugu dambeysaan meeshaan ku aragnay, shalay dhalinyaro ganacsataa idinka horreysay, culimadii aan aragnay, dhalinyaradii aan aragnay, odayaashii dhaqanka yaan aragnay, baarlamaankii guddoonkiisii yaan aragnay, aqalka sare guddoonkiisii muxuu ahay noo ballansan. hadda aan arki rabnaa 8 saac iyo bar haddii alla yiraa. bal talada ha la ballaariyo, wixii dowladda laga rabo waa inay samayso, inay dadka u yeertay talada ballaariso, dadka inta dhegaysato, markay xataa dadka dhegaysto kadib ayadoo go-aan ha gaarto. laakiin dadka iyo dareenkooda iyo rabitaankooda iyo cabsidooda iyo taladooda fiican inay dhegaysato waayo wixii dowladda laga rabay. kabacdi ayadoo dadka magaan la soo tashanay, waxaana sidaana nala habboonaatay ama intaasaan meesha u nimid. colaad ma wadno, dagaal ma rabno, beledkan dhib iyo qax iyo problem waa kasoo daalay inuu u noqdo ma rabno. waana waxa anagoo nala xirxiray airport ma bixi karaan, inta ma ka dhoofi karaan, diyaaradda xaggaa ka dhacdo inta lama yeeli karo, guryahooda ma joogi karaan nala leeyahay. inaan ka jawaabno oo aan muxuu ahaay xabada ridno, aan uga gaabsano, isaga celino, uga dhowrso. maantana diyaar uma ihin weli inaan colaad iyo xumaan iyo isdil iyo dumid dalkan ay ka dhacdo. waxaa la yidhaha qoraga sidiisa wax ma dilo, qofka sitaa wax dila. dowladdu ayadaa qoryaha haysato, dadkana yaanay dilin, in ay dadku ay dilkaas ka jawaabaanna yaanay sababin. talada ayaday jirta, amniga, deganaanshiyaha, mas-uuliyadda dadka la saara ayaga waay. haddii dowladdu ayadu ay socoto ay wax ku dheesho ay damacdo, dee mas-uuliyadda un qaaday. annaga waa sheegaynaa dadka qaybaha kala duwan bulshada soo aragno, adinkana waa gabdhaheen walaalin waa idinku celinaynaa. annaga marna muxuu ahaay beledka inuu dagaal ka dhaco kamana talinayno, horena ugama soo talin, haddana ka talimayno. laakiin nimankaanaase saan aan fiicnayn ay kasoo muuqataa. dhaqankoodu dhaqan fiican ma ah. soomaaliyaan nahay, dalkaanaan soo joognay, waa naqaanaa, dadkeennaan naqaan, dulqaadkooda waa ognahay. nimankan dhaqan kasoo muuqda dhaqan maahay, nala arka, u taga, la hadla, wax u sheega. haddaad u tegi weysaan idaacadaha kala hadla, haddaad hoos ugu caqli celin. waanada waxaa la yidhaha waa qarsoodi waaye. haddii laakiin qarsoodidii aad qofkii aad wax ugu sheegi lahayd aada weydo, inaad jidka la soo istaagto oo aad muxuu ahay sheegtidaa kuu furana inaad aamusido gurigaaga iskaan soo dhawaada. gabdhaheenni mar kale muhiimadda ugu weyn maanta aan idiin codsanay oo idinku yeernay waa sidaas. muhiimadda kulankeenana waa sidaas. intaasoo dad waa soo aragnay, intaas waa noo dhiman tahay. maanta waxaan arki rabnaa beesha caalamka sidoo kale iyadana muxuu ay noo ballansan oo aan rabnaa inaan aragno ilaa soo dambeeyo.
sodomeeya dal safiiro ka socda inaan la kulanaa rabnaa marka waxaasoo dhan waxaan u dadaalayna waxay tahay dhib in la yareeyo wanaagana in la qurxiyo oo la badiyo oo la hagaajiyo